ومعناته حلبانada ay soo saaran oo ka koobnaa number 1 hogaanka koonfur galbeed waxa uu ku fashilmay wax u qabashada shacabka abaaraha iyo colaadu ay aafeeyeen wuxuuna waqtigiisa ku bixiyay ku gooshida diyaaradaha iyo faragelin howlo dawladda federaalka oo wax shaqo ku lahayn qodobka labaad waxaan u mahad celinaynaa ciidamada sugaya amniga deegaanada iyo shacabka koonfur galbeed Soomaaliya iyaga oo ku shaqeynaya gaajo iyo mishaar la'aan aan ognahay waxa ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya ku wargelinaynaa in ay dawladda federaalka ay u soo dhiibtay madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed xaquuq iyo mishaar ay ciidankaasi maamulka koonfur galbeed uu leeyahay qodobka saddexaad waxaan u mahad celinaynaa madaxda iyo saraakiisha koonfur galbeed oo waajibaadkooda u gutay sida sharciga tilmaamayo isla markaana dhowray xasaanada xildhibaanada xasaanadooda waxaanu u digaynaa madaxa hoggaanka sare ee booliska oo ku guda jira howlo ka baxsan waajibaadkiisa shaqo qodobka afraad ee shirka jaraa'id ayaa wuxuu oranayaa waxa aan guddoonka golaha ee wakiilada koonfur galbeed Soomaaliya aynu ka codsanaynaa inuu furo kalfadhiga golaha wakiilada 20 Maarso 2017 sidii horeba loogu balamay si loo guda galo waajibaadka shaqo ee hor yaala qodobka shanaad ee ugu dambeeya in la abuuro guddi golaha wakiilada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah oo ka howlgala wax u qabashada shacabkooda abaarta iyo colaadda iyo dandarada haysata dhinaca ha hilmaamin subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogtada ah